Sheeko xariirooyinku waa qayb ka mid ah suugaanta, waxaana la isaga gudbiyaa afka. Jiilba jiilka ka dambeeya ayuu u sii gudbiyaa. Maxaa yeelay sheeko xariiradu waxay leedahay meel ay ka bilaabato iyo meel ay ku dhammaato, macno iyo nuxur ay xambaarsan tahay oo aan marnaba laga boodi karin. Dadka lehna ay u yaqaaniin, sidaas bay suugaanta kaga mid noqotay. Sheeko xariirooyinka Soomaaliyeed waxay u qaybsamaan 5 nooc oo kala ah: sheeko, sheeko murtiyeed, maanto, sheeko baraley, iyo sheeko ku-tiri-kuteen ah. Haddaba waxaan muuqaalada soo aadan ee aan soo qaadan doono uga hadli doonaa dhowr iyo 70 sheeko oo ah nooca sheeko baraleyda loo yaqaan, 300 oo xigmadood, iyo dhowr iyo 40 halxiraale, kuwaas oo ku saabsan waxyaalaha ay carruurta had iyo jeerba isweydiiyaan. Su'aalahaas oo si cilmi ah ama caqli ah looga jawaabay. Sheekooyinka muuqaalada ku jira waxay isugu jiraan kuwo jawaabo run ah loo helay iyo qaar si maaweelo ah oo run u dhow looga jawaabay. Dhammaan heerkoodu qiimeyntuna waa heerka carruurta, ujeedadooduna waa maaweelin iyo madadaalin. Sheekada ugu horeysa ee aan ku soo qaadanayna muuqaalkan wuxuu ciwaankeedu yahay Dadka maxaa adduunyada keenay. Waxaa la yidhi berigii hore markii uu Ilaahay Nebi Aadam calayhi salaam ciidda ka abuuray ee uu abootaxaawo feertiisa bidix ka jeexay, ayuu jannada geliyey si ay halkaas ugu noolaadaan uguna tarmaan. Laakiin Ilaahay ayaa wuxuu ku yidhi Aadam iyo Xaawo, geedkaas ha cunina oo ha isku taabanina. Markii ay in muddo ah barwaaqadaas jannada cunayeen, cabayeen, subkanayeen oo seexanayeen, ayaa maalintiin dambe waxaa abootaxaawo oo meel iska fadhida u yimid shaydaan oo cadow u ahaa aadamiga, diidayna inuu ixtiraam ahaan u sujuudo Nebi Aadam calayhi salaam markii la abuuray. Malaa'igtii oo dhan markay u sujuudeen ayuu shaydaan yidhi, aniga ayaa ka wanaagsan, Aadamka aad i leedahay u sujuud. Sidii ayaa shaydaanka jannada looga saaray, naxariista Ilaahayna looga fogeeyey. Wuxuuna ku yidhi Xaawoy, soo ma ogid in Aadam uu naag kale kula qabo? Xaawo waxay moodaysaa nin daacad ah. Waxay ugu jawaabtay, ma ogi. Wuxuu ku yidhi shaydaankii oo ka faa'iidaysanaya feejignaan la'aanta Xaawo ayaa yidhi, haddii aadan ogeyn soo bax, haddaba anaa ku soo tusayee. Xaawo markii hore arrintaas shaydaankii way ka rumaysan weyday. Ugu dambeyntii waxay go'aansatay inay arrintan ka gungaadho. Waxay raacday baa la yidhi shaydaankii. Sidii uu u waday ayuu wuxuu dulgeeyey ceel biyo ah. Markaas ayuu abootaxaawo ku yidhi, fiiri, waa taas halkaas ku jirtee. Markii ay Xaawo ceelkii ku foorarsatay ayay hadhkeedii ka dhex aragtay ceelkii. Abootaxaawana waxay ahayd mid aad u qurux badan. Waxay ceelkii ku dhex aragtay naag aad u qurux badan oo weliba soo eegaysa. Halka qofka marka uu biyaha ku rogmado inuu ka soo dhex baxayo markii hore lama ogeyn. Iyadiina markay aragtay huumaageedii ayay istiri, nacam, waa runtaa, wallee arrin iga maqneed ayaa ii sheegtay, waadna mahadsan tahay. Arrintan aniga ayaa ka gungaari doona. Shaydaankii oo doonaya inuu arrintan si kale ugu faa'iidaysto ayaa ku yidhi, haddii uu daacad kuu yahay waxa aad ku tiraahdaa geedkaas mirihiisa ii cun. Haddii uu kaa diido waxa aad ogaan doontaa in ay dhab tahay waxa aan kuu sheegay. Haddiise uu cuno geedkaas waxa aad ogaataa inuu daacad kuu yahay. Iyaduna waxa ay ku dhaaratay inay arrintaas fulin doonto. Markii ay Nebi Aadam iyo abootaxaawo is arkeen ayay ku tiri, adigu waxa aad ila qabtaa naag kale, taasina waa igu khiyaantay. Mid aan kaa yeelayana ma aha, ee arrintaa maxaa ka jira? Nebi Aadam calayhi salaam
oo yaaban welina aan fahmin in arrintu uu shaydaan ka dambeeyo ayaa ku yidhi, xaawo waa sidee? aadami wax la yidhaahdaba waxaa ka abuuran aniga iyo adiga. hase yeeshee xaawo si kasta haddii uu wax ugu sheegay wuu ka dhaadhicin waayay arrintaas, waxayna soo istaagtay, haddii aanay taasi jirin waa in aad ii cuntaa geedkan. nebi aadam markii hore wuxuu xaawo ku yidhi, taasi suurtagal ma aha, geedkaas ha cunin ayuu alle subxaanahu watacaala nagu yidhi, sidee baan u cunnaa markaas? xaawo waxay tidhi, taas adigoo sameeya ayuu baan ku qancaa. markii uu sinna ku baxsan waayay, nebi aadam calayhi salaam ayuu geedkii goostay oo ruugay. liq markii uu is yidhi ayaa malag cunaha qabtay oo ku yidhi, tuf ha liqine. halkaas ayuu nebi aadam ku soo tufay. nebi aadam calayhi salaam iyo aboota xaawo jannadii ayaa laga soo saaray oo adduunka ayaa la keenay. sidaas ayay aadamigu adduunyada caarcaarkeeda ugu tarmeen. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan kanalka subscribe noo saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan sheekooyinka soo socda. hadduu ilaa yidhaahdo like-tana noo saar.